doorashada iyo doorka haweenka ee siyaasadda iyadoo aynu wada ogsoonahay kaalinta muhiimka ah ee haweenku kaga jiraan nolosheena islamarkaana ay yihiin sabab kasta oo ka dambaysa guusha hadday noqoto mid gaar iyo mid mujtamacba ayaa haddana waxa haweenku ay weli raadinayaan doorkii ay ku lahaayeen doorashada iyo siyaasadda oo ay xaq u leeyihiin. waxay ahayd madashani mid habeennimadii xalay u camirnayd haweenka gobolka Togdheer kaasoo ay kaga hadlayeen doorashada iyo doorka haweenka ee siyaasadda waxaana barnaamijkaasi soo agaasimay ururka hablaha horumarinta Burco oo ah urur ay aasaaseen qayb ka mid ah hablaha aqoon-yahanada ah ee waxgaradka ah ee gobolka Togdheer waxaana barnaamijkaasi ururka hablaha horumarinta Burco uu ku soo casuumay si ay haweenka kale ee gobolka Togdheer ugu dhiirigeliyaan in ay ka qayb qaadan karaan doorashooyinka iyo sidoo kale siyaasadda. hablo ka mid ah hablaha aqoon-yahanada ah ee gobolka Togdheer dhammaantoodba haweenkii goobtaasi ku sugnaa waxay carabka ku adkeeyeen in ay rabaan kaalinta ay ku leeyihiin doorashada iyo siyaasadda iyo qaybaha kale ee dowladda iyadoo aanay ka tegin haweenkii halkaasi ku sugnaa diinta islaamka waxay fartay iyo wixii ay ka reebtay. gabadha kartideeda iyo aqoonteeda muuqanaysa ee dowladda qayb ka noqoto waxa dhici doonto mar ay dhici doonto la oran doono dumarku siyaasadda aad ugu fiican yihiin hogaamintooda aad ugu fiican tahay marka la ina arko gabadhu way ka aaminaad badan tahay ragga marka xagga siyaasadda leeyahay haweenku ragga way kaga aaminaad badan yihiin xagga xeer way ka daacadaysiin way ka run sheeg badan yihiin ninka siyaasiga marka halkan aan taagan yahay wuxuu kula hadlaya afaa ugu qurux badan wuxuu idin muujinayaa muuqaal aad u qurux badan laakiin badana sidan uu hadlayo iyo wuxuu qabtay ismalaha laakiin gabadhu markasta waxay ku soo hor istaagtaa waa waxa runta marka haweenka iyo siyaasadda laga hadlo waxa la yiraahdaa intii kala idinku filanee diin ahaan dhaqan ahaan caado ahaan dadnimo ahaan soo jireen ahaan Soomaali ahaan hadad haweentihiin siyaasadda uu iska daaya laakiin maadaama aynu wax barnay garaadsanay ilbaxnay kornay maanta waxaan leenahay kursigaas aad fadhidaan ayaa rag oo loo wada hayaan yahay rag iyo dumarba haddaynu joogtayno shirarka noocan ah doodaha noocan ah iyo wixii la mid ah waxaan u malaynayaa inay noqon doono xarigii xakabka kala jaray golaha guurtida 790kii baa la doortay 280 oday bay ahaayeen xafiiskaygaas daraasaadku wuxuu soo ogaado soo cadeeyay 280kii 70 ka mid inaanay maanta joogin noolayna golaha guurtida 11 kaliya dadkii la doortay 790kii jooga maxay nagu matalayaan marka dadka kuraasta fadhiya yaa doortay yaa u dhiibtay kuraasta nin kursigiisii aad u soo socotaa ma u tahay inuu ku banaynayo wax dheeraad oo la doonaynaa ma jirto waa wixii aan xaq u lahayn waxaan dagaalamayna u rabnaa marka waan jeclaan lahaa cid kasta oo hankaas leh inay maaragtay ku dhiirato lihii gacanta taagay yiri waxaanu leenahay han siyaasadeed fartaas ayna gaarsiinaysa haddaba sidee inoo gaarsiinaysa inaynu ka baxno dee caqabadahan haysta oo maxay ah number 1 waxa kamida go'aan qaadashada decision makerka gobolka ka taliya amba dawladda ka taliya amba Soomaaliland oo dhan ka taliya wasiir ilaa madaxweyne ilaa inta ka hooseysa inagu waxba kuma lihin khaasatan markaynu hablaha Burco u nimaadno inan kaliya oo Burco joogta oo mustaqbal siyaasadeed leh oo ifaya oo salaan la soo kursiyo la soo baritaaray ma jirto inan kaliya xafiis dawladeed garhayeenka ah ma jirto uma haysano qof walbaaba masiirkiisa siyaasadeed ayaha mustaqbalkiisa wuxuu xaq u leeyahay dee waa inuu wax ku darsado haweenku waa inay wax ku darsadaan ka Burco ahaan hablaheenu dee waa inaynu wax ku darsano siyaasaddu waxa weeyaan xafiis dawladeed in la maamulo inaad maaragtay gabar tahay maaha wax liidata waa wax lagu faano runtii waana waxaad ragga kaga duwan tahay waxa laga yaabaa halka uu ninku mas'uuliyadda adduunka iyo dumarka Ilaahay ku aaminay adiga maaragtay inaad shaqooyin ka badan oo ka qurux badan oo nolosha qaybaheeda kala duwan in maaragtay Allah subhanahu wa ta'ala uu ku aaminay waan idinku dhiirigelinayaa inaad maaragtay nolosha qaybaheeda kala duwan ka qayb qaadataan oo anigu hal boos idin salagti garayn maayo ma tagayna diintu intay noo ogoshahay laakiin xaq waxaynu u leenahay intay noo ogoshay inaynu han u yeelano oo barano siyaasaddu waa fakal ama waa wax la barto kamid ah fakalladan aynu barano sababtaas bay tahay inaynu habla ahaan siyaasadda barano u tartano kuna maxay hayday challenge garayno marketka siyaasadda ragga
barnaamijkan wuxuu noqon doonaa barnaamij socda insha Allah bilaynu ka dhigi doonaa hadba dhinac baynu ka eegi doonaa ilaa aynu marka dambe isla qaadano caawa hablaha banarkan ku yaala idoo oramayo waa musharaxiin laakiin waxaan idin leeyahay waa hablaha doonaya inay ka qayb qaataan dhiirigelinta haweenka iyo siyaasadda hablaha sawirkan leh halkana soo fadhiya dhinaceena weey kulankani ayaa noqonaya kulankii ugu horeeyay haweenka gobolka Togdheer ay kaga hadlayaan kaalinta ay ku leeyihiin doorashada iyo siyaasadda ay iskugu yimaadaan iyadoona kulankaasi uu ka dambeeyay isla markaana ay soo agaasimeen ururka hablaha horumarinta Burco oo ah isagu urur had iyo jeer u taagan ka qayb qaadashada baahida waqtigaasi taagan Cabdilaahi Maxamuud Muuse Xudayfi wararka telefishinka Ariel magaalada Burco.